Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena wararka ugu dambeeya update-ka sportska anagoo kusoo qaadan doono qodobo aad u muhiim ah. Fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalkeena fadlan subscribe noo saar, like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan, aragtidaadana comment noogu reeb. Arsenal oo dharbaaxadii ugu weyneed ku dhufatay Mesut Ozil oo laga saaray liiska xiddigaha Premier League. Mesut Ozil ayay u badan tahay inuusan weligiis mar kale u ciyaari doonin Arsenal iyadoo lagu waramayo in laga reebay liiska 25 xiddig ay Arsenal u gudbisay maamulka Premier League. Isbuucii ugu dambeeyay ayaa la hadalhayay in Gunners ay kubad sameeyaha Jarmalka ka reebayso liiskeeda ciyaartoyda u dheelaya horyaalka Premier League. Telefishinka ESPN ayaa haatan shaaciyay in 32 jirkan uusan ka qayb qaadan doonin horyaalka Premier League ilaa iyo bisha Janaayo kadib markii laga reebay liiska 25 xiddig ee Arsenal u gudbisay maamulka Premier League. Kooxaha ayaa laga ogolaan doonaa inay dib u habeen ku sameeyaan liiska kooxahooda bisha Janaayo, laakiin waxay tani la micno tahay in xiddiga ku guuleystay koobka adduunka sanadkii 2014 inuusan mustaqbal ku lahayn Arsenal. Xiddigii hore Real Madrid ayaa u dheelin Arsenal tan iyo kulankii ay 1-0 kaga badiyeen West Ham bishii March. Horaantii bishan Ozil ayaa laga reebay liiska ciyaartoyda Arsenal ku matalaysa Europa League iyadoo Mikel Arteta uu cadeeyay inuusan u baahnayn. Ozil ayaa mushaar gaaraya 350 ganiga Israa'iilka isbuucii ka qaata Arsenal, waxaana la sheegay in isaga iyo daafaca dhexe ee Gunners Sokratis in laga reebay liiska Premier League. Labadan ciyaaryahan ayaa noqon doona kuwa xor ah oo dhamaadka xilli ciyaareedkan iyadoo Arsenal ay doonayso inay meel isaga yeesho mushaarka labadan ciyaaryahan. Ozil ayaa iska diiday dalab qaali uu ka helay Sacuudi Carabiya si uu ugu dagaalamo booskiisa kooxda, laakiin Arsenal ayaa dhabarka u jeedisay xiddigan mar ahaa laacibka ugu qaalisanaa. Degdeg garsoorihii qaladka xun sameeyay kulankii Liverpool Everton oo la ciqaabay. Garsoore David Cote ayaa lagu ciqaabay inuusan garsoori doonin kulamada isbuuca soo socda ee Premier League kadib qaladkii uu sameeyay kulankii Merseyside Derby. Cote oo ah garsooraha VAR ee kulankii Liverpool iyo Everton ayaa ku guuldareystay inuu hubiyo qaladkii uu goolhaye Jordan Pickford ku galay Van Dijk kaasoo keenay in daafaca uu garoomada ka maqnaado muddo bilooyin ah. Beddelkii uu David Cote eegi lahaa qaladkii uu Pickford kula kacay Van Dijk, wuxuu diiradda saaray kaliya haddii offside uu jiro, taasoo keentay in Pickford uu ka badbaado inuu casaan la siiyo kulankii Gothenburg ee ku dhammaaday barbaro 2-2 ah. Waxay taasi haatan keentay in muddo isbuuc ah shaqada laga fariisiyo. Cote ayaa noqon doona garsooraha beddelka kulanka Manchester City West Ham iyadoon loo diiday inuu noqdo garsoore dhexe ama garsooraha VAR kulamada isbuucan. Marka laga soo tago inuu iska indho-tiray qaladkii uu Pickford ku galay Van Dijk, Cote oo ahaa garsoorihii VAR wuxuu sidoo kale abuuray muran markii uu diiday goolkii guusha ee Henderson u dhaliyay Liverpool isagoona xugmiyay in Mane oo offside ahaa, inkastoo muuqaalka uu shaashada soo saaray aysan muujinaynin sidaas. Liverpool ayaa aad uga carootay go'aanka Cote iyagoo ka dalbaday xiriirka garsoorayaasha Ingiriiska ee Bigmore inay kasoo jawaabaan cabashada ciyaartan kadib. Madaxa Bigmore Michael Beale ayaa la hadlay Liverpool isagoona sheegay in garsooraha VAR uu eegay qaladka dhacay balse uu arkay inaysan ahayn qalad mudan calaamad, laakiin haddana Michael Rea wuxuu isbuucan ku ciqaabay Cote inuu noqdo garsoore beddel kaliya ah. Arsene Wenger oo talo fiican siiyay Mesut Ozil kadib bahdilkii ugu dambeysay ee Arsenal ku sameysay xiddigan Jarmalka. Arsene Wenger ayaa ugu baaqay Mesut Ozil inuu durba isku diyaariyo kooxdiisa xigta kadib markii uu tababaray Mikel Arteta go'aan ku gaaray inuu xiddigan qadka dhexe ka reebo liiska ciyaartoyda Arsenal ee Premier League. 32 jirkan ayaa durba laga reebay liiska ciyaartoyda Arsenal ee Europa League, mana lagu darin 25 xiddig ay Arsenal u gudbisay Premier League maanta oo Talaado ah. Go'aankan ayaa la micnaa in Ozil uusan u dheeli doonin Arsenal ilaa iyo bisha Janaayo iyadoo xiddiga qadka dhexe u muuqato inuu kulankiisa ugu dambeeyay u dheelay Gunners. Wenger oo Ozil keenay Arsenal sanadkii 2013 markii uu ka soo bixiyay 42 milyan ganiga Israa'iilka ayaa kula taliyay xiddigan qadka dhexe inuu diiradda saaro sidii uu taam u noqon lahaa iskuna diyaarin lahaa kooxdiisa cusub oo ku biirayo. Markii la weydiiyay sida ay tahay inuu Ozil uga jawaab celiyo haddii laga reebay liiska ciyaartoyda Arsenal ee Premier League, Wenger ayaa u sheegay Sky Sports waa inaad tababar sameysaa maalin walba isla markaasna aad hubisaa in heerkaaga ciyaareed uu hoos u dhicin, iskuna diyaarsaa inaad aado meel kale oo aad ku ciyaari karto. Markii la weydiiyay haddii uu la hadlay Ozil, Wenger ayaa yiri maya lama hadlin isaga tan iyo markii aan ka baxay Arsenal, sababtoo waxaan go'aansaday inaan ka fogaado kooxda oo aan fargelin ku sameyn hawsheeda.
sida aan buuggayga ku sharxay markaad koox joogto muddo dheer waxaa muhiim ah inaad xiriirka u jarto oo aad ogolaato inay hawshooda qabsadaan. Wenger ayaa sidoo kale soo jeeday in go'aanka uu Arteta uga saaray kooxdiisa Ozil inaysan ahayn mid kaliya ku kooban sabab isboorti ay jirto arrimo kale.